dhammaantiin baa khiyaarta hawada naga daawanaysa kusoo dhawaada barnaamijkeeni Milixsi oo aydun ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada Stockholm ee ariga Sweden wadana iyo marwooyin caruur iyo ciroole dhammaantiinba akhyaaray waxaanu idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijkan oo kamid ah barnaamijyadii aad uga barateen telefishinkan barnaamijkeenan ayaa maanta waxa marti inoogu ah in xubno ka socda ururka qoraaga Somaliland oo runtii uu yahay ururka qoraaga Somaliland ururkii laga aasaasay magaalada Stockholm ee ariga Sweden dalalka loo yaqaan Scandinavian-ka mudanayaashan maanta halkan martida inoogu ah oo uu kamid yahay gudoomiyaha ururka qorayaasha Somaliland waa gudoomiye Sayid Maxamed Yuusuf Dheeg sidoo kale waxa halkan marti isaguna inoogu ah Maxamed Xirsi Guuleed Cabdi Bashiir oo ah gudoomiyaha akademiga afka Soomaaliga ahna xubin ka tirsan gudiga ama ururka qoraaga Somaliland iyo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah madaxa hidaha iyo dhaqanka iyo hidda dhowrka ahna xoghayaha ururka qoraaga Somaliland hadaba barasho wanaagsan ayaan leeyahay barnaamijkan ayaan waxaan jecelnahay inaanu dhowr qodob aan ku soo qaadno ururka qoraaga Somaliland ay isbarataan bal ujeedooyinkii loo aasaasay sidoo kale bal waxyaabihii u qabsoomay maadaama xagga qoraaga aynu ognahay in baahi fara badan ay bulshadeenu ay u qabto waxaana leeyahay Sayid Maxamed iyo Muuse dhammaantiinba kusoo dhawaada telefishinka qaranka Somaliland haddaan ku bilaabo Sayid marka koowaad waxaa tahay gudoomiyaha ururka qoraaga Somaliland bal horta waxaad sharaxaad yar oo kooban naga siisaa bal adigu gudoomiyaha bal sharaxaad yar bal horta dadweynaha siira barta bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley horta runtii magaca dheeg baan aada u caashaqayba oo dheeg baa tiri laakiin waa dhegay aada iyo aadna runtii waa kaaga mahadnaqayaa barnaamijkan aada nagu casuuntay noo ogolaatay fursaddan qaaliga ah in aanu warbixin wixii aanu hayno aanu soo gudbidno muuse iyo maxamedna waa runtii tiirarka ugu waaweyn ee ururka oo runtii waxaan da ku diirsanayaa wixii aan ka tago in iyaguna kolleyba ay ku dari doonaan ururka qoraaga Somaliland waxaa laga aasaasay magaalada Stockholm ariga Sweden waa laga yaabaa magaca in meelo badan laga maqlay oo ilaa iyo wadankii iyo dacalada adduunkaba laga maqlay laakiin halka laga aasaasay waa Sweden waana Stockholm waxaa la aasaasay 2003 maxamed wadin cayga fadhiya wuxuu kamid ahaa aasaasayaashi buu kamid ahaa runtii waxa aan u aasaasnay oo ugu mudnayd uguna muhiimsanayd waxa jiray xilliga qorayaal fara badan oo markaa wax ku qorayay afka hooye af Soomaaliga waxaan markaa dareenay in isbarashadayadii intayadii wax qorqoraysay oo aan oran karo meelaha ugu badan Sweden baa kamid ahayd in loo baahan yahay dalad isku xidha si ay isu bartaan qorayaashu kuwa hore gaboobay iyo kuwa dhexe iyo kuwa dhalinyaraba inay isbartaan halkaasoo aanu aad iyo aad runtii aanu ugu niyad samayn inay ka soo bixi karto waxtar weyn ka soo bixi karo taas horta runtii aanu kaliftay waanaanu ilaa hadda mar haddii uu jiro magacii oo uu weli shaqaynayo nool yahay halkii lagu aasaasayna uu weli ku nool yahay waxaan oran karaa runtii waa noo farxad weeyaan maxamed oo ah runtii isaguna gudoomiyaha akademiga afka Soomaaliga bal maxay tahay gudoomiyanimadan afka Soomaaliga yani akademigadu aad iyo aad baad mahadsan tahay marka ugu horeysa Cabdikariinow waxa kale oo mahadsan dabcan telefishinka bahda telefishinka Somaliland aanu maanta martida u nahay oo dabcan fursad noo siiyay inaanu isbarano dadka iyo bulshada aan markaa maaragtay qorayaasha u nahay oo aanu iyaga afkoodii wax ku qorno oo iyaga wax u qorno malaa laba ciwaan baan meesha ku fadhiyaaye dabcan waa saa lagu sheegayo asaasayaashii waxaan ka mid ahaa ururkan hadda qaan gaadhay ee ah ururka qorayaasha Somaliland waa 10 jir weeye marka waa urur qaangaadh noqday baa la odhan karaa waxaana ila tahay hadda in la maqlay in wadankiiba xafladihiisii lagu dhigayay maaragtay weegan dhexdiisa gudoomiyanimadan aan sitaan waxa weeyaan urur la yiraahdo Somali Language Academy ma akademiyada afka Soomaaliga ayaan madax u ahay oo iyada qudheeda halka kan laga amba qaaday waxa weeyaan tan afafka adduunku waxay leeyihiin akademiyad
ama maaragtay xarun ama hay-ad xanaanaysa sida dadku markay xanuunsadaan hay-ad caafimaadkooda ilaalisa ay u jirto ayaa afkana loo xanaaneeya wadankan aanu leenahay aynu joognaaba ka mid a oo lagu xanaaneeyay afka oo hay-adda qoladan Nobel Prize-ka qaybta literature-ka bixisa waxay ka tirsan yihiin akademiyada Swedish-ka marka afkii Soomaaligu ma laha taas oo sababta dhacday waxa weeye dib u lahaa markii hore afka la qoray way jirtay akademiyadii maaragtay afka iyo dhaqanka iyo sayniska laakiin dawladdii markii ay burburtay cid dambe oo u dhaqaaqday ma jirin afkiina dadkiina way kala firxadeen adduunkiina maxaafad quruu soo noqday marka afkii Soomaaliyeed waxaan dareennay inayna cidina u maqnayn oo cid kale oo laga suga aanay jirin inay wax u dhaqaaqdo marka waxaanu asaasnay hay-ad yar oo Sweden ku kooban oo la yiraahdo Somali Language Academy akademiyada afka Soomaaliga oo macnaheedu yahay in dadka marka afkii xiiseynaya dadka qorayaasha dadka caadiga ah aqoonka ah inay isu yimaadaan dadka macallimiinta ah bishiiba hal mar kulmaan dabadeetna ay hal mowduuc inta isla qaataan mowduuca isla dhiraan ereyada ku jira ee cusub ama bixinta ereyada u baahan la tarjumo inay markaa maaragtay ka shaqeeyaan ujeedadu waa taas wey halkan runtii isaguna Muuse Dalmar oo isaguna qoraa ahna runtii madaxda ururka qoraaga Somaliland ayaa waxaan jeclay bal isagana inaan wax ka weydiiyo bal haddaba haddii aan maadaama aan su-aalihii hore ku horreysiiyey ee ahaa ururka qoraaga oo ay labadan mudane inaga jaahil saareen adiga ahaan haddaan kugu soo noqdo su-aashuna kolleyba saddexdiinabooda khusaysaa bal bugaagtan aad qorteen bal nooga warrama qoraanimadiina bal Muuse ka warran adigoo bal qora Muuse ahaan waa si fiican Cabdikariim runtii geel duq baa loo tumaday nimankii odayaasha iga horreeyay oo wax badan iftiimiyey waxaan jecelahay inaan kelmad raaciyo anigu waxaan ahay xubin ka mid ah ururka qoraaga Somaliland waliba guddida nimanka joogtay ama ka mid ahay oo waxaan ahay xogayaha ururka qoraaga Somaliland sidoo kale malaha taytalada ay nagu badaneen waxaan kaloo aan ahay ama aan ku jiraa hormoodka amba hawlwadayaasha baahda hidaha iyo dhaqanka hidda dhowr oo ah laan ka mid ah ururka naadiga akhristayaasha Stockholm marka runtii buugtaan qoray inkastoo ina tiro badnayn oo macallimiintaydii ay halkan fadhiyaan oo niman badan oo aan inta badan qoraalkana ka barto igana buug badan igana wanaagsan ay joogaan oo inta badan hadalka inaan iyaga u daya jecelahay haddana buugtaan anigu qoray haddaad i weydiisay 2010 waxaan qoray buug la yidhaahdo Hantaaqa Jacayl 2011 waxaan qoray buug la yidhaahdo Darka Maada oo aan ku soo ururiyey sheekooyin badan oo xikaayaad iyo maadis ku jira sheekooyinkaas oo ka dhacay miyiga magaalada markii dee nolosheena inta badan dadka Soomaalidu ay magaalada yimaadeen oo qarniga soo dhaafay u badan iyo waliba inta qurbaha la yimid ee 20 sano ama 20 sano qurbaha la joogay sheekooyinka badan ay qosalka lahaayeen dhacay kuwaas oo aragnay inaan weelayno intii ay meesha ka bixi lahaayeen si ay u noqdaan dhinacna madadaalo u noqdaan sina ay u noqdaan diiwaan yaala 2012 waxaan soo saaray bishii August 2 riwaayad cusub oo ka hadlaysa wacyiga iyo waayaha qurbaha riwaayadda magaceeda la yiraahdo Tayabeerka Caruurtu waalid buu tabaya runtiina xoog uga hadlaysa nolosha qoyska Soomaaliyeed ee qurbaha Yurub iyo waqooyiga Ameerikaba kana hadlaysa laba qoys mid wanaagsan la fiican qaado oo hooyadii aabaha isla jaan qaadan qoys fiican sameeyeen iyo qoys burburay oo runtii isna tusaale u ah isku xidhnaanta amba maxaan ku yiraahdaay isla jaan qaad laanta ka jirta qurbaha marka bugaagtu waa badan yihiin runtiina dadweynaha waxaan uga ballan qaadaynaa in qorayaasha bugaagtooda aydun barnaamijyo hor leh oo halkan ka bilaabmi doona ay inoogu soo bandhigi doonaan sida Muuse uu carabka ku dhuftay oo bugaag fara badan oo runtii cilmi iyo xigmadba isugu jirta bal haddaan sayid usoo gudbiyo sayid walow aad tahay guddoomiye haddana waxaa tahay nin qoraa ah bal waxa aad runtiina bugaag fara badan baad qortay oo uu ka mid yahay bugaad ka qortay Somaliland bal waxaad haddaba nooga warantaa bugaagta aad adiguna qortay ee aynu dadweynaha mustaqbalka usoo bandhigi doono kuweeba ka mid a aad iyo aad baad mahadsan tahay runtii barnaamijkaasi kolleyba haddii aad noo sii ballan qaado aad baanu ugu farxaynaa waayo kolleyba waa fariin waxaan la qorayaa qofka qoraagi waxaan qorayo wuxuu jecel yahay ma aha in laga lacagaystay in ma garanaysaa beesha dhaqaale laga helo maaha laakiin fariintu gaadho dadka
dee loogu talagalay waayo af soomaaliya buugaga badidooda ku qoran yihiin aad iyo aad baanu ugu farxaynaa runtii in barnaamijkan oo kale aad naloo diyaariyo oo weliba oo loo soo gudbiyo aad iyo aad baanu runtii ugu farxaynaa ma gelayo buugaga kale waayo waa laga yaaba dee in barnaamijyada dambe aan u dhigto laakiin mid baan soo qaadan karaa buuggan ayaan jecelay runtii inaan si fiican ugu xadanteeyo maanta barnaamijkan waayo waa buug ka hadlaya waa yaryahay itaalku intaasu aniga gaadhsiiyey laakiin kolleyba cidiga horeyso iga sandheeri ma jirto mar haddaan cidiba qorin ayaan odhan karaa waana runtii aad baan ugu farxayaa maanta inaan halkaadee tusaale yar uga dhigo waana buug ku saabsan uun 26 juun ka hor ma aha somalilandan cusub tani waa tii cusbayd laakiin tii hore in la helo wax walba waxaa la doonaa xaguu waxaana ka yimi marka 26 juun 1960 weeye buugani ma aha intii ka dambeysay ma aha buugaga kalena runtii waa adigu kolley marka dambe u dhigan doonaa marka wuxuu ka sheekeynayaa somaliland siday ahaan jirtay 1960 iyo taariikhdeedii dhacdooyinkii hore wixii heshiisiya jiray intan ka gaadhay wax badan baa ka maqan runtii oo u baahan baaritaan sababtan u leeyahay fariinta wax kale ma aha waan ogahay inay guri walba taallo intaasoo taariikha oo muhiima oo faa'iido noqon lahayd laakiin markay guriga taallo dee waxba tari mayso bal hal noqdo haddaan buuggaa kaa weydiiyo waxyaabihii kugu yaabka badnaa maxaa ka mid ahaa markaa taarikhda somaliland aad dib ugu noqotay way fara badan yihiin runtii laakiin waxa ka uguba dhowan soo qaadan karaa waxa weeye baarlamaankii 60kii oo baarlamaankii imika waxaa kasii nool markaan buugga hore soo saaray waa buuggan dib baan u daabacay waxay ahayd 2002 waxaa noolaa baarlamaanka somaliland ee ugu horreeyey kolley dhowr iyo 10 haddaanay 20 gaadhayn ilaahay naxariistanna ka waraabiye maxamed ibraahim cigaal baa ka mid ahaa oo noolaa marka buugga aan waday ee uu dhammaadka ahaa waanaan ogahay imika ilaa tiraba cabdi xasan buuni xasan buuni baa ka mid ah waxaa ka mid ah xaaji cabdilaahi diiriye gamgam baa ka mid ah ragga dhintay intii buuggan imikaan gacanta ku hayeen marka runtii de taariikhduna waa wax isu geegeyn wax la helo oo qoraal lagu helo iyo wax lagu helo oralba waxa markaa igu yaabadnaa baarlamaanka waan waayey markii hore qofba wuxuu ii sheegaa 4 reerkoodii malaha oo uu garanayay 2 ku yar xeeran laakiin qof iyadoo isku dhan aan ka helo waan waayey waxaana jecel halkan inaan uga mahadnaqo Siciid Cali Giir oo aan nolol ku ogaa ayaa ku soo daabacay jamhuuriya 1997 ku soo daabacay halkaasana ka helay runtii marka waa noqday 330kii baarlamaankii ugu horreeyay Somaliland buugaas runtii waxaan noqon doonaa buugaagta aynu kaga sheekeyn doono runtii waxaan dareemayaa wax maskaxdiina tuujiya la waaye annagu waxaan isku taxalluujinaynaa TV-ga qaranka inaan idin tuujino bal maxamedna haddaan usoo noqono aan ooye albaabka iyo xidha buug la yidhaahda ayaa ku hor yaala waxaa tahay adiguna qoraa runtii aad qoraaladiisa loo jecel yahay bal taariikh yaroo kooban adigana qoraannimadaada bal naga sii bugaagtaad qortay inagoo barnaamij dambena isugu soo noqon doona aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan runtii bugaagtan qoray horta qoraal keliya dee kuma mashquulsanine wixii maaragtay dhinacaas literatureka siyaabo badan baa looga markaa maaragtay loo soo galaa oo mar ay cilmi baadhis noqoto iyo mar ay qoraal noqoto iyo mar ay suugaan noqoto iyo marbas bay noqotaa marka waxaa ka mid a waxyaalahan sameyno dee dabcan suugaan iyo gabayaal baa jira waxaa jira qoraallo gaagaaban oo sheekooyin maldahan ah ama sarbeeb ah riwaayado yaryar laakiin haddaan xagga bugaagta u noqdo kuwa aan anigu iskay u alifay waa ilaa 9 buug waxaana ugu dambeeyey buugga kan hadda halkan aan ku hayo oo soo baxay sanadkii hadda marka maarata dhammaaday 2012 buugganna inkastoonu gadaal kaga sheekeyn doono waxaa la yidhaahdaa aan ooye albaabka ii xidha waxaa laga yaabaa dadku markay maqlaan aan ooye albaabka ii xidha inay xasuustaan dhacdo ay wada yaqaanaan amaba ay intaan hore waqtigaa joogin in ay bugaagtii iskuullada lagu dhigin jiray ay ku arkeen oo ninkii la odhan jiray ilaahay u naxariista ama halgamaagii la odhan jiray maxamed ismaaciil baasarci barkhad cas ayaa ereygan lahaa aan ooye albaabka ii xidha waqtigu odhanaya waa la garanayaa waxay ahayd waqti wadanka uu mugdi ku jiray oo gumaysta uu gumaysanayay marka isaga waxay dadka qaar moodi karaan inaan ka sheekeynayo masar barkhad cas allah raxma laakiin ma aha halkudhig baan ka dhigta ama ciwaan baan ka dhigtay gabaygiisii
waxa weeyaan waagii gumaystuhu ummadda haystay gumaystayaashii reer yurub markay dalka gumaystanayaan iyo kuwa madoobiba suugaantii lagula diriray ee markaa maaragtay lagu sheegay xanuunkii iyo dhibtii gumaysigu uu lahaa iyo gumaysinimadu iyo markaa maaragtay sidii laisugu guubaabin jiray in laska kiciyo marka bal muuse haddaan usoo noqono inagoo qeybsanayna barnaamijka waxaa jirta qoraagu runtii waxaad moodaa in aanay bulshadu aanay aada waktigeedii aniga igu dambeysay aanay bugaagta aanay u jeclayn inay akhriyaan ama aanay wakti geliyaan arinkaa ma ka wada hadasheen guddigiina qoraaga somalilan sidii aydun bulshada yani aydun uga dhaadhicin lahayn bal waxaan idin qoreysaan in ay akhristaan waa su-aal fiican runtii waxaa xusid mudan oo fiican in halkan aan ku sheegno in akademigan afka soomaaliga maxamed uu nagala fadhiyo maanta oo runtii anagu baanu ka wada shaqeyno oo maxamed guddoomiyaha noqday laakiin si aanu ku wada jirno waxa ay qabtaan bishiiba hal mar dhammaadka bil kasta aqoon isweydaarsi ay ka soo qayb galaan macalimiinta afka soomaaliga dhiga waddankan arday qorayaal iyo weliba qeybaha kale bulshada halkaasoo maalinba mawduuc lagu qaato taasi waxay ka mid tahay laambadaha shidan aan odhan kara ee imika iftiimaya ee u baahan in la sii wado sidoo kale naadiga akhristayaasha stockholm oo kamid ah laan kamid ah bahda hidadhowr iyaga laftii waxaanu sameynaa in bildhaaf aan u sameyno kulan aqoon isweydaarsi ah oo akhriskii aan ku dhiirigelinayno iyo qoraalka annagoo mar walba dhiirigelina in la barto akhriska oo qof loo diro la dhahdo buuggaa soo akhriyo markuu buuggii soo akhriyo qofkii ka sheekeeyo intii kale ee dhegeysanaysana ay su-aalo ka weydiiso laguna dhiirigeliyo inta kale aan akhrin buuggii inay buuggii amba soo iibsato amba ay maktabadda kasoo daysato ayuuna ay akhriyaan marka runtii dadaalku ma yara walow duruufaha iyo waktiga jiraana uu yahay midna dabraya arrinkaas bal haddii aan sayid wax kaa weydiiyo yani duruufo ma baadheen duruufaha hortaagan dadku inay wax akhriyaan wax badan ku dari maayo laakiin waxaan uun yara xasuustuun kulleyba runtii muuse iyo maxamed iyo anigu weliba aan uguba hawl yaraada marmarka qaare waxay aad aan xooga u saaray inaan la fadhiin meel keliya ee meelo badan oo Sweden ka mid ah in la gaarsiin karo carwooyin laga dhigi karo buugaga la soo bandhigi karo runtii dhowr meelood baanu tagnay Boorleenga waanu tagnay oo 2 jeer baanu tagnay labadoodu waxay iiga badnaayeen waliba meelo kale oo ay tageen oo ay soo bandhigeen buugag fara badan oo kuway qoreen iyo kuwa dad kale qoreen ba marka su'aasha macnaha ma isku daydeen in dadkii la gaarsiiyo runtii waa la gaarsiiyay imka waxaanu aad u balansanayn wali noomay hagaagin waqtigiina wali maanu helin laakiin maalmo kale oo aad garanaysaa magaalo weyn tahay in aanu tagno oo saddexdeedaba tagno oo buugaga kuwa iyagoo kaliya ma aha buugaga af Soomaaliga ku qoran wixii aanu heli karno aanu la wadaagno reer maalmo reer Yatoboori wadankii xitaa haddii ay suurtagal noo noqotay waqtiyada dambe in aanu carwooyin joogta aynaanu ka samayno stockman xitaa qorshaha way noogu jirtaa marka runtii dadka inaanu gaarsiino maanu fadhiisano waa orodkayagu ma yara laakiin waxaan ku darso waxaan ku daray wax weeyaan runtii waxaan anigu nidhaahnaa dhinac waxaan nahay dad nasiib badan dadka waqtiga kan dadka af Soomaaliga wax ku qora waqtigan dhinacna waxa laga yaabaa in nasiib darro xoog li jirto dhinac waa nasiib badan nahayo dadka qorayaasha Swedishku aad bay noo majeertaan oo waxay yiraahdaan waxa tihiin waxa haysataan fursado dahaba sababtoo ah wixii ay istiraadaan wax ka qora halka istiraadaan u dhaqaaqaba way diinta afkiin bar waxba looga qorin markaas yaani waa hadaad damacdo inaad qoraa weyn noqoto qoraa weyn baad noqon kartaa Soomaali hadaad tahay maadaama wax waliba ay buugga kugu horeeyay ku noqonaysaa dhinacaas waa fursad runtii qaali oo lagu farxo laakiin dhinaca ka nasiib darrada jirta waxa weeyaan ummadan oo aan wax qorno oo aan ogeynba inay buugagtan jiraan oo akhriska ku fiicneen tusaalahaan oo kale wadankan aynu ku noolahay Sweden anagu aan ku noolahay Sweden xaafad yar oo kastaba waxa ka jirta maktabad public ah oo loogu talagalay inay dadku wax ku akhristaan oo dawladdu leedahay buugga soo baxana way iibsataa haddii afku doonaha ku qornaadee buug ma soo baxay maktabad kasta xabad nuqul bay ka qaadanaysaa haddii markaa buugaagta la amaahan waayo oo dadkii deegaanka deganaa ay buugaagtii amaahan waayaan qof waliba kaar buu leeyahay dalkan waa la socotaa haddii buugaagtii amaahan waayaan buugaagta dib loo dalban maayo markaa Soomaalida berigii hore aan qoraalka bilownay wax badan baa la qaadan jiray maktabaduhu waxa uu buug Soomaaliya soo baxay markaas waxa laga dalbanaya jimladan imika qof buugga Soomaaliga soo baxa ciidan ma soo dalbato maktabadaha ma xabad dalbanaya waxay leeyihiin dadkii ma akhriyeen buugaagtii
facebookii baa lagu mashquulsan yahay Soomaalidu waxa ma akhriyaan bili waxa la wadanka laba qolo dhaqato xayawaan xagga waqooyi ku taala iyo Soomaalida uun baa ugu liidataba xagga wax akhriska iyo waxa mahashada buugaag arrintaasna waa arrin dhibaato maxaad markaa baaritaan miyaad samayseen sababta keenaysa in aan bulshada afka Soomaaliga ku hadashaa aanay jeclayn in ay akhriyaan buugga nimanka Somaliland taariikhdiisa ka sheekeynaya runtii waxaan dareemayaa inuu yahay buug aad qiimo u leh oo taariikh fara badan Soomaali waxa ku hadlo dhama ay ka heli karaan haddana sababta aan yacni aanay isugu taxalluujinayn yacni baaritaan ma samayseen ururka qoraaga Somaliland haddaad tihiin ordaan waxaan isleeyahay sayid baa geli doonee waxaan jirin dhaqan wax akhris baynaan lahayn dadkeena ayaan dhaqan wax akhris lahayn oo waan lagu soo barbaarin waa la qabatimaa waa la qabatimaa haddii ilmaha markuu yar yahay soo akhriyi jiray markuu weynaado balwad bay akhris ku noqonaysa innaga dadkeena hadal ayaa waxa la dhahaa oral society baa la dhahaa ummad afka wax isaga sheegta waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaahdo buuggii arkayo intuu adigoo meel usoo bandhigay inaad isaga uu kaa qaato iibsado akhristo wuxuu ku leeyahay buuggan muxuu ka sheekeynaya bal iga sheekay haddaad tiraahdo dee waxaas ka sheekeynaya marka maanta oo dhan ka sheekay soo u dhamayso doonaya marka ummaddeena inay wax dhageysatay ay jeceshahay ay hadasho laakiin waxaan jeclayn akhriska horta musiibada weyn in haysta taas weeye anuusan isleeyahay kulli waa sidaas intaad sheegtay waxaad ka eegtaa runtii baaritaan gaara oo dee ururku sameeyey ma jirin laakiin waxaad ka eegtaa un guri kasta fadhigiisa kabadh weyn baa yaalla kabadhkaa weyna yaalla buuga kuma jiraan haddii buug la saaro markiiba waa laga qaadaa waa guri kastoo Soomaaliyeed baan filayaa laakiin waxaa ku jira koobab qurux badan baa ku jira oo waxaan la yiraahdaa waciyada magaranaysa lagu qurxiyo marka halkaas aad garanaysaa dhaqanka uu sheegay Maxamed inaanu jirin dhaqan wax akhrisba runtii waana u baahantay in la baaro dadka lagu dhiirigeliyo imika tusaale ahaan waxaan soo saaray oo imika sanadkii saddexaad maraya alif oo waa bridge waa kamid macna meelahan jecel inaan ku gaadhno dadkii dee waliba dadkan horta isuulan kadibna meelihii kale aanu gaarsiin karana aanu gaarsiino oo buugagii baa ku qoran buugaga soo baxay iyo baa ku qoran marka runtii waa fikrad fiican in baaritaan la sameeyo laakiin saan dareemayno dhaqan baan ahayno haddana soo leexiyo waa si fiican koleyba odayaashu way dhameeyeen waxaan raacinayaa baaritaan rasmi oonu sameynay isagoo iyadoo aanu jirin runtii oo aan nahno waxaasaan ku ogaan haddana waxyaabaha aanu waaragnimadu ay na tusaysa waxaa ka mid a imika sanadkii tegey aniyo maxamed anu badnaana welibana waxaanu samaynay safar amba wareeg aan ku tagnay badiba magaalooyinka waaweyn ee waddankan Sweden ilaa 10 magaalo waan soo marnay maraan wada soconay maraanu kala soconay baan raado qayb naga mid ay tagtay marka tagtay magaalo timaado waxay imanaysaa ilaa 200 ama 300 oo qof inta hadlaysa way dhageysanayaan laakiinse marka buugtii la gaaray ee nus saaci ama birriftii oo kale la yiraahdo kafeha la cabo buugtina la iibsado inta ku leexanaysa ee buugtii eegaysa way yarta waliba inta ku leexatay waa in ciwaankun akhriyaysa in qaadanaysa iyaduna way yarta tukala iyaduna jirto oo buugii qoraagu soo gaaray waqti uu geliyay intaas oo ka shaqeeyay ayaa waxa laga yaabaa qof aad asxaabtiin amba magaalada degantiin inta buugii ka diinsido ilaa waan bixinaya ayaa wixiina markuu shaah yar yahay oo dee wax koob shaah lagu cabay yahay markuu isbiirsado qoraag wax ka dambe soo saari karaa ayaa qofka duun xitaa soo celinaya ay adagteen aad wixii ka soo ururiso waayo aad buugii qortay ma lihid laakiinse hay'adii amba shirkadii suuq geyn lahayd marka xitaa waxyaabaha kale iyadana muujinaysa waxa kamid ah riwaayadana ku sheegayay taayabeelka caruurta waalidku tabaya ayaa markan iyada iyo buugtii soo wada bandhigno imika sanadkan tagay bishii October ilaa December ama ilaa September ilaa December 4 bilood baan wareegin marka magaalooyinkan tagno riwaayada markan project ka tusnaan tusno way xiisaynayaan 5 daqiiqo tusayna way xiisaynayaan marka looga sheekayo iyada aad u iibsanayaan waa muuqaal laakiin buugii in ka yar bay iibsanayaan buugii ma xiisaynayaan marka kelmadii way imika sayidii maxamed bal hayeen lahaayeen waa oral society tii baa meesha ka soo baxaysa laakiin hadan dadaaladaan wadnaa waxaad moodaa in iyagu isbedel sameeyo sanadadu dambeeyay dhaqdhaqaaq badan baa jira aadna dhalinyaradu inoo weydiinayaan maxamed waxaa jira in waqtigan xaadirka ah in baahi fara badan loo qabo sida aad hore marar badan aad sheegteen in dalka Somaliland laga sameeyo xarun aqooneed afka Soomaaliga in lagu xanaaneeyo bal arrinka fikirkaasi yani iyo baaqas bal nooga waran baaqas wuxuu yahay horto sidaan sheegay markii hore aan ku sheegay horto afku waxa weeyaan waa ummadda dhaqankeeda wixii xambaarayay oo tusaalahan kala dadku afkii garan waayaan dhaqankeediina ma garanayaan waa la oran karaa dhaqanka iyo afku way isla socdaan oo is sidaan marka inagana wadankii wanaga sheegnay oo kama jirto hay'ad
xanaanaysa afkii oo markaa ilaalisa inuu meeqaankiisa ay kor u qaado, ay tayadiisa kor u qaado, oo ay ka dhigto af markaa maarata qiime leh oo soo jiidasho leh. marka waxaa jira haddaan barbardhig baan inta badan ku sameeya wadamada kale, wadankan aynu joogno oo Sweden la yidhaahdo, oo wadamada waaweyn ka mid ahayn, akademiyadda afkiisa ilaalisa waxaa la aasaasay 1770 macnaha waa waqti hadda laga joogo ilaa 230 sannadood wey ayaa la aasaasay. 10 sanoba waxay soo saaraan, ama dhowr iyo 10 sanoba waxay soo saaraan diiwaan uu ku urursan yahay afkii ereyada dalkan oo dhan, ereyadii dalkan oo dhan ay ku urursan yihiin, oo waxaa la dhahdaa liistada ereyada Swedishka, kuwaasna standard ka dhiga. innaga wadankeennii waxaa soo dhami kama jiraan, iska daaya waxaa soo galay afaf kalaa soo galay. waxaa lagu shaqeeyaa markaa maarata dukaamadii waxaa ku qoran markaa maaragtay afafki meher xaysiisay waxaa ku qoran afaf shisheeye, iskuuladii waxay leeyihiin magacyo kale, wax waliba magac kale wada leeyihiin ajnabi ah. waxa technology iyo electronic iyo wax waliba wayna soo galeen iyagoo magacyo shisheeye wata. marka waxaa loo baahan yahay in la sameeyo akademiyad afkii ilaaliso xanaanaysa. waxaa kaloo loo baahan yahay meel lagu cilmi baaro afkii oo lagu kala hufo, oo wixii gaboobay laga saaro, wixii cusubna erebixin cusub loo sameeyo. saas daraadeed dee maanta waxaa ka jira Somaliland dowlad baa ka jirta, waxaa laga yaabaa in waxyaalo kale prioriteerinka iyo xooga saarayso, laakiinse waxaa halbowlaha waxa uu ummadii dhaqankeedii loo ilaaliyo, afkeediina loo ilaaliyo si ay ummadani usii waarto ay muddo dheer u jirto. marka waa inay taas runtii ay markaa maaragtay xooga la saaro weeye, oo maal la geliyo, oo talo la geliyo, oo markaa cod la geliyo. ururka qoraalka Somaliland oo xaggan joogaana arrintaas runtii baaq baanu halkan ka dirnay, qoraal baanu halkan ka dirnay, waanu markaa maaragtay ku hagaajinay, oo arrintaa waa in loo kaco oo laga furo wadankii maxadka cilmi baadhista afka Soomaaliga. bal sayid arrinkaa maxaad ku daraysaa? runtii wax badan ku dari muhiimadda maayo. uu u leeyahay afka Soomaaliga guud ahaan. waa muhiimad runtii la wada garanayo, wax laga yaaba qof kastoo dhegeystaaba uu garanaya. maxamed runtii waa dee sharaxaad weliba uu barbar dhigayo wadan dee iyagu 1700 wax soo bilaabay, laakiin qaabka macnaha muhiimaddu ay mar walba u jirto dee waynu garan karaynaa. taa runtii baaqaasi waa baaq aan weliba isku daynay inaanu gaarsiino maanta xukuumadda jirta, oon is leenahay kulleyba malaa ehel way u noqon kartaa arrimaha afka ama xaruntaasoo kale in la sameeyo. runtii waanu qoraal ahaan waanu ku gudbinay urur ahaan, iminkana fariin way naga tahay oo runtii cid kastoo macnaha fikirka waxaan dareemayaa in kulley qof walba odhanayo waa run, laakiin waxay u baahantay ku dhaqaaqidii, weliba xukuumaddu inay ku dhaqaaqdo oo weerkii ay u samayso. marka taayir wax badan oo kale ku dari maayo. iyadana barnaamijkan waxaan ugu talagalnay ma aha oo keliya ururka qoraaga Somaliland in idinku mashquulsantihiin xagga qoraayaasha iyo bugaagta oo keliya, sidoo kale in aydun dadkii taariikhda wadanka ku lahaa iyada laftigooda aydun xusuus iyo intaba aydun u samaysaan, iyo dee inaan la ilaawin. waxaanan ognahay Gaariya Foundation in lagaga dhawaaqay wadankan Sweden, idinkuna aydun ka mid ahaydeen dadkii ka qayb galay islamarkaana ku dhawaaqay. bal marxuumka runtii waxaa loo sameeyey Gaariya Foundation in lagu dhawaaqay, xagguu maraya Gaariya Foundation? runtii waa su-aal aad iyo aada u muhiima, aanu jecelnayna inaanu fariintan aanu aada uga faa'iidaysano, oo kolleyba dee dad badan baa daawanaya barnaamijkan. waxay ahayd geeridu markii geeridu waa xaq, ilaahay naxariistana ka waraabiye maxamed xaashi dhamac Gaariye maalintuu geeriyooday waa laga yaabaa dad badan inay maqleen oo dad badan ka naxeen, laakiin geeridu waa xaq, wax macnaha maaha wax la yaaba maaha. waxaase laysla gartay oo meelo badan lagaga dhawaaqay in magaciisii lasii nooleeyo oo loogu magacaabo wixii uu taagnaa. taas annagoo ka duulayna markaa Stockholm markiiba tacsidii lagu qabtay ayaanu kaga dhawaaqnay. guddi kumeel gaara baanu samaynay, anigii maxamedba ka mid baanu ahayn, ilaa haddana runtii ka mid baanu nahay. marka 2 qaybood baanu u kala qaadnay. mid waxay ahayd in tacsi ahaan horta bal reer Stockholm ka qayb qaataan, runtii maanu gaadhin Sweden inta kale, laakiin Stockholm inay ka qayb qaadato tacsi ahaan taa waanu dhammaynay oo facekii hore ahaa, qaybtii hore ahayd. qaybta kale waxa weeye qaybtaa ah foundationka oo laysla gartay guddidii aanu markaa loo magacaabay oo ahayd guddi kumeel gaar. waxay u garteen inuu hoos yimaado ururka qoraaga Somaliland, laga furo sanduuq ku magacaaban Gaariya Foundation, oo sanduuqa uu gaar u yahay, yeeshana u madax banaanaado maamulkiisa iyo magaranaysa iyo xeerarkiisaba. marka waa taata aanu aad iyo aad u jecel lahay. Stockholm oo kaliya wax ma qaban karto, Sweden wax ma qaban karto, halka asalku waa wadankiina baaq guud meel kastaba ay gaadho. annagu se kulliba itaalka iyaga
dee waanu bilownay oo waxaanu ka hadhayna maaha magacaana waanu u bixinay. marka baaqa guud ee aad u diraysaan iyo isagoo sharaxan waxa weeyaan in la sameeyo sanduuqa lagu ururiyo wixii lagu ururin karo, isla markaana ujeedada weyne loo socdaa tahay in la furo xarun lagu magacaabo tusaale ahaan waxay u taagnaan kartaa dhaqankii, afkii, suugaantii, wax alla wixii maxamed xaashi dhamca uu taagnaan jiray in laakiin lagu magacaabo isaga lagu xuso magac ahaan. marka arrinka dardar la geliyo xarunta dhaqanka iyo afka magaca kastaa loo bixin karaa, laakiin inay marka hore hesho dee dacalada adduunka o dhan laysaga wada yimaado laysku wada xidhmo, wadankiina uu noqdo macal xukuumad, macal shacbi, macal qabeen in loo wada kaco. maxamed waxaad ku darsanaysaa arrinkaas? waxaan ku darsanayaa dabcan ama baaqaas waa ahlan sahlan sax weeyaan. waxaa weeyaan waxaan ku darsanaya waxaanu horta la isla gartay iminka horta waxaa dhisan qalfoofkii waa lagu dhawaaqay arrintii qalfoofkeediina wuu dhisan yahay. macnaha waxaa la dhisay waxaa lagu dhawaaqay in la sameeyo foundation wax gaariya foundation wax la yidhaahdo. waxaa kaloo la isku heshiiyey inuu noqdo qeyb ama farac ka mida ururka qoraaga hoos tagta. waxaa kaloo guddiba la magacaabay hawshii wadda. waxaa kaloo la sameeyey akoon dhinacan halkan laga furayo iyo mid wadankii oo weli aan la furin oo wadankii laga furayo gudihiisa. ujeedaduna waxa weeyaan inaga dhaqan kaamalihin runtii foundationada iyo waxyaalahan oo kale dhaqan waa wax nagu cusub weeye, tijaabo cusub aynu sameynayno weeyaan oo ah in bulshada dhan lagu casuumo in markaa maarata ay bixiyaan contribution ha noqoto ilaahow bisha dhanaad $1 ku biiriso sanduuqaas. waxaanay markaa maaratay lagu taageeri doonaa maadaama wixii hadda uu dhisan yahay xeerarkeediiba hadda weli socdaan dhammaystirmin run ahaantii sidii qaybihii uu taageeri lahaa iyo waxyaalihii markaa maarata loogu talageli lahaa. lakin waxyaalaha ugu muhiimsan waa suugaanta kala duwan iyo xorriyadda. marka maarata in xorriyad dadku ay u xor ahaadaan tacbiirkooda ay hadli karaan oo aan qofka loo ugaarhsanin wuxuu aaminsan yahay iyo waxa uu sheegayo. yacni waxyaalahaas ayaa asaas u noqon doona. waxaa lagu xasuustaa isagu inuu markaa maarata goobo ay adkayd oo arrimuhu cakirnaayeen ka dhex kacay dhowr jeer oo markaa maaratay hadal dadku ay ku neefsadeen ka yidhi oo markaa runtii aad iyo aad wax loogu farxa ahayd deerley ay ka mid ahayd. muuse halkaa wax miyaad ku darsanaysaa? wax badan raacin maaye waxaan odhan lahaa waxaa iyadan aan dhowaan waraysi baan dhegeysanayay guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa oo isagu laftiisa carab ku dhuftay in ay wadaan academy amba qayb ka mida jaamacadda oo loogu magac dari doono gaariye. marka iyada laftigeega aan odhan lahaa in meel kasta oo jecelba inay gaariye wax taariikhdiisii iyo suugaantiisba lagu ururayo jecelna ka qabtaano ha laysku soo xidhmo oo si aan loo kala beeqbeeqin. waxa wanaagsan in iyaga laftigooga ururka qoraaga ay nagu soo xidhmaan oo wixii amba haddii halka ay ku wada ururayso kolliba waddanka fiican wixii laga qabtee in laysku xidhmo halkana wixii laga qaban karo iyo halkaa wixii laga qaban karo ay noqoto shabakad isku xidhan oo dibad iyo gudaba si aynu wada noqono qofta ujeeda ambaba waxa laga duulayo aynu wada gaadhno si ayna markaa inaanu beeqbeeqino inaan noqon qolaba ayna meel wax ka bilaabo wixii isku meel loo wado. runtii aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa walow ay su-aalaheenii qeybtii ugu dambeysay aynu soo gaadhnay. maanta dad fara badan oo laga yaabo in aanay ururka qoraaga Somaliland hore maqal inay maanta ay ogaadeen inay jiraan qoraayayaal ama rag wax qora oo isku taxalluujinaya in ay taariikhdii kalgacaylka sheekooyinka wax walba ay maanta bugaag idinku soo bandhigaan. haddaba waxaan jecelahay bal guddoomiyaha inaan weydiiyo maxaa ka mida mustaqbalka dhow waxyaabaha dabka idiin saaran ee aad is leedihiin mataqaana bal dadweynaha usii sheega. runtii barnaamijka kooban ma jecli inaan waqti badan inaan qaato, laakiin imika erey baan durbe dhadhansaday markaan tii ragga wax qoro oo dumar baa naga maqan horta dumar waan u baahanay. horta dumar iyada waa aad baan ugu baahanay. waa dumarka ma garanayo wax kastaba ha looga dheereeye in qoraaga looga dheereeye ma yahay af Soomaali wax ku qoraan, dhowr ingiriis wax ku qoraabana way jiraan, laakiin inay ku qoraan af Soomaali aad baan u jeclaysanaa. taas waa qorshaha iyaga koobaad in la helo haween fara badan oo wax qora, cid u diidaysaa ma jirto. welcome baan u leenahay kusoo dhawaada ururka qoraaga Somaliland inkastoo imikaba ay ka mid yihiin laakiinse waanu u tabaynaa. qorshaha waxaa ka mida alif oo kale inaan horumarino oo uu gaadho meelo fara badan oo wuxuu soo baxaa 3 bilood mar buu soo baxaa. bilad aanu bixin jiray oo naga yar istaagtay oo buugaga soo baxay ku soo baxa af Soomaaliga
oo sanadkiiba buugagaa soo baxay inta la qiimeeyo guddi loo saaro la odhan jiray buuggaa wuxuu u aqoonsaday ururku buuggii sanadka oo imika naga istaagtay ilaa sanadkii u dambeeyey iyadana inaanu soo celinno oo aanay halkaa nagaga istaagin iyo arrimihii hore aan u qaban jiray ay ka mid ahayd bandhigyada iyo meel kasta oo aanu isleenahay waa dadka waa lagu wacyigelin karaa in aanu dee aanu sii xoojino ayaguna kordhay ku tala jiraa maxamed adigu halkaa waxaan ku darsanaysaa mayo kolley waxaan uga faa'iideysan lahaa bulshooyinta iyo dadka daawanaya horta dadkan wax qoraa waxa laga yaabaa dadkii horta wax qori lahaa idinkana waa idinku dhex jiraan oo qaar qoraal badanna waa idinku dhex jiraan hadda wayna daawanayaan laakiin waxaan bulshooyinta horta ku dhiirigelin lahaa inay waxa la qoro akhriyaan waa qodob muhiima weeye waayo waxay u noqonaysaa dhiirigelin bay u noqonaysaa dadka wax qoraya kuwii hore qorena dhiirigelin bay u noqonaysaa kuwa isku dayay inay wax qoraanna waxay noqonaysaa inay dhiirigeliso afkiina madax bay u noqonaysaa haddii kale waxaanu ku qasbanaanaynaa inaanu qof kale wax lagu qoro oo af ingiriisi iyo af swedish iyo af carbeed iyo dee afaf ummadahu aan akhriyayaan in wax lagu qoro oo xaggaa la raadsado taasina waxay noqonaysaa dhaxal wareeg afkeeni ku yimaada marka bulshada waxaan ku gubaamin lahaa inay afka soomaaliga akhriyaan bugaagta lagu soo qoro hadda wax walba waa lagu qoraa ma aha yani sheekooyin keli lama qoro bugaag qura sugaan qura lama qoro diin baa la qoraa cilmi saynis baa la qoraa dhaqaalaa la qoraa nooc walba hadda waa af soomaaliga waa lagu qori karaa markaas taasaan markaa maaragtay dee odhan lahaa midada kalena ciddii wax qoraysana dabcan dadka waa caawinaa anagu runtii oo inta badan dhalinyarta lacag kuma taageerno oo uma daabacno laakiin ciddii buug soo diyaar garaynaysa waanu hagnaa waa la akrinaa waan la saxnaa taa qudheedana markaa maarata diyaar buu ururka qoraaga u yahay iyo ashkaas ahaanba marka muuse inagoo runtii guntii soo gaadhnay dadka doonaya inay ururka lasoo xidhiidhaan amaba inay ka mid noqdaan amaba dalka ha joogaan amaba yurub ha joogaan ama maraykan yani halkeeba idinka heli karaan sideeba idin lasoo xidhiiri karaan waa su-aal fiican ururka qoraaga somalilan horta wuxuu leeyahay mareeg amba wuxuu leeyahay website lagala soo xidhiiri karo adduunka qofku meel kastuu ka joogo ay u dhib yartahay hadduu internet haysto inuu soo galo macluumaadna ka helo aqoonna weliba uu kala kulmo ciwaanku waxa weeye www qoraaga.com wey waa af soomaali qoraaga.com taasi waa taas emailkii halkii xitaa maamulka lagala xidhiidhaya halkaasay ku taallaa halka xubinnimada waxaan u yar dhaafayaa guddoomiyaha oo inuu odhan way daba maraya isagaan u daynaya taas waxaa keliya toos dhaawan kelmadin aan iyadana ka faa'iidaysto sidii ay maxamed yaba sheegeen waxaa jira howlo aan wadno halkan oo inta badan runtii anagoo jeebkayaga iyo waktigayagaba u hurayna waxaanu samaynay barnaamij la yihahdo tabliiqa afka soomaaliga oonu wadamada skandinafiyanka weliba badi sweden aanu isku daynanu magaalooyinka gaadhsiina akhriska taas waxayna tusaysaa sida aynaan maanta hay-ad amba dowlad afkii u maqan amba dhaqankii u maqan oo laga suga ayna jirin qof walba ay mas-uuliyad saaran tahay oo mid ilaaliya mid akhriya iyo mid faafiyaba aynu wadanahay talabaadna tala keliya tumaan rabaa inaan ka faa'iidaysto waddankeeni somaliland dee maanta dowlad baa ka jirta maamulkeeni waa maamuleen sharci baa ka jira marka bal si aynu uga faa'iidaysano fursad aynu haysano waxaan odhan lahaa iskuullada weliba iskuullada hoose iyo kuwa dhexaba in maadooyin akhriska ah lagu daro oo tartan qoraalka ciyaalka loogu daro marka ay noqoto in afkii la kobciyo xitaa ciyaalka marmar dhalinyarada loo diro erebixin ila waa kan afkii iminka barabax badan kusoo kordhayay taa waxaan odhan lahaa dowladda iyo weliba macalimiintaba tu kalena waxaan dardaaran baa iyadana gudbin lahaayo gooraanba sayidii maxamed oonu fiirsanayo hadalladay lahaayeene aqoonyahankan waxaad moodaa in aqoontii amba darajadu qofku u qaatay inuu af ingiriis ku hadlo amba af qalaad uu kelmadihiisi hadalkiisiba mar walba kusoo daray kelmadaha shisheeya marka tan waxaan leeyahay aqoonyahanka maadaama mar walba tiriiga lagu dayanayo yihiin inay isku dadaalaan inay afka inta badan ay ku dadaalaan inay sii soo isticmaalaan iyo weliba qaybaha kale warbaahintu ta kalena waxaan odhan lahaa dumarka iyo weliba hooyooyinka inay iskuna dayaan inay waxna qoraan midda kalena ay buugtan aanu qorina amaba qorayaasha kale qorayaan ay isku dayaan in guryaha la dhigo caruurta weliba buugta caruurta habeenkii intaan lasii seexin oo kale caruurta loo akhriyo dabeecadda noocaasa la baro oo sida ay alaabta kale u sayid sheegayba guriga u yaalaan la isku dayo inay buugta taallo xitaa markay marti timaado martida intaad shaah usoo karinaysa amba cunto u samaynayso fadhiga miiska yaalla ay buugta taallo qofkii iska sii akhrisan karo buugta miiska taallo marka taas waxay noqonaysaa dhaqan ah aynu baranno aynu yeelano dhaqankii akhriska mar baan xubin idinka mida qorayaasha somalilan aan waraystay ayaa waxau yidhi bal bugaagta qaato meesha mataqaanaa kabarhka ku taxa haba akhrisanine intaasuna asxaan noogu sameey
marka bal haddaynu usoo noqono dadka doonaya in ay ka mid noqdaan amaba idinla soo xidhiidhaan amaba doonaya in ay wax badan idinka ogaadaan walow uu muuse sharaxay mareegata internetka bal maxaad ku daraysaa halkaa gudoomiye runtii horta halka ugu muhiimsan waa halkaa muuse sheego waxa weeyaan waa dee adduunka oo dhan baa qofkii galaaba waana qoraaga .com waa www da garanaya ma bedelayd af Soomaaliya waa wa dhibic qoraaga oo af Soomaaliya .com marka taa runtii waxa laga helaya macluumaadku dhan halkaas ayaa laga helaya oo email-adayadii iyo guddidii iyo halkaas laga helaya inkastoo aanu meelaha qaar laga yaabo weli qabiyo uu yahay laakiin adigu inta muhiimka halkaas laga helaya runtii waa aad baan idinku mahad celinayaa in walow ay barnaamijkana guntiga gabagabadii soo gaadhay marba marka ka dambeysana aad moodo in su-aalaha kuwooda ugu qiimaha badnaa ay soo baxayaan waxaa jira afka Soomaaliga iyo iminka teknolojiyadan casriga ah sida Facebook internet yani marka aad doonaysaan in aydun af Soomaali u bedel yani ma isku taxalujistaan in af Soomaali aad ka dhigtaan erayadan cusub ee soo baxay amaba ha ahaadaan waxaan internetka lagu isticmaalo oo dhan way jiraan isku day noocaas oo kale ugu jira yaabane annaga ashkhaasteeda noqonine dad ama ururka qoraaga ka tirsan ama dad kale oo arrintaas ay hami ku abuurtay way jirtaa laakiin sidaan sheegnay mushkiladda ugu weyn ee jirta waxa weeye waxaan jirin meel ka ururisa oo wixii marka ay soo celiyaan tusaale ahaan oo kale hadda waxa ereyga iska caan baxay odhanaya internetka oo kale odhanaya mareeg u bixisay waxaad moodaa inuu ereygaasi faafay oo odhanaysa mareegta iyadoo laleeyahay cid uun baa fikirtay oo tiri bahalkani ma mareegtii maaragtay oo kala isku xidhnayd saas maaragtay isugu taxnayd ayuu u eegi way jiraan computerka oo kale iyo internetka iyo dad badan oo erey bixiino badan keenay laakiinse waxaan jirin meel marjac la isku waafaqay oo ansixisay waana kan hadda ku baaqaynay in la furo maxad cilmi baadhisyada afkii Soomaaliga ah oo akademiyada su-aasha ugu dambaysa ha ama maya ayaad ku jawaabaysaan afka Soomaaligu ma noqon doona afafka adduunka ka dabar go'a maya laakiinse wuxuu baahan yahay hawsha shaqo u baahan shaqo badan u baahan sababtaan idin weydiiyay waxay tahay afaf fara badan ayaa la sheegay oo laga yaabo in adduunka ka dabar go'aan mar haddii la waayo wax xanaaneeya oo ilaaliya marka kulleyba maya haddaad tirahdeen waxaan u noqon doonaa maalin dambe isugu soo noqon doonaa ugu dambeyntii maxaa kusoo gabagabaynaysaan barnaamijkan anigoo daqiiqadii ugu dambeysay idin siinaya runtii horta marka hore dee mahadnaq iyada ka gayoon mayne dee mahadnaq dhammaan TV-ga qaranka adigoo ah Dalmar waa aad iyo aad baan runtii idinka mahadnaqaynaa anuu wada ku hadlaya horta magacayga iyo magaca ururka baan ku hadlaya waxaana kulley barnaamijyada dambe haddii aad fursad noo siiso kuwaasaan wax badan odhan doonaa insha Allah ilaahay idankiis waan salaamay dadka dhegeysanaya dhammaantood dhammaan daawadayaasha dhan waan salaamayaa mar labaadna waxaan u mahad celinayaa bahda TV-ga qaranka gaar ahaan Cabdikariin Dalmar waxaana jecelahay in dadkeenu ay noqon doonaan dad wax akhriya waxna qora insha Allah marka waarimaysi wara ka hadhanay aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin barnaamijkan daawadayaal waxay kala qayb qaatay ururka qorayaasha Somaliland oo runtii ah mid ka jira waddanka Sweden waxaananu idinka ballan qaadaynaa bugaag aad iyo aad u qiimo badan ayay halkan qorayaashu ay inoogu soo bandhigeen oo aanaynu ka goyoonayn haddii aynu isna idhaahno barnaamijka soo qaata laakiin waxaan idinka ballan qaadaynaa in barnaamijyo fara badan aan kusoo qaadan doono iyaga iyo bugaagtoodaba oo aan rajayn doono inaydun aad iyo aad uga heli doontaan waxaananu idin leenahay aad baa umahadsantihiin barnaamijka waqtigiina qaaliga aad u horteen sayid aad baad umahadsantihiin maxamed iyo muuse intaba waxaananu idin leenahay barnaamijka qaybihiisa kale iyo telefishinka qaranka idinkoo naga daawanaya halkaa waxaa noogu dhammaaday barnaamijkeena milicsi sidaa iyo nabadgelyo wasalaam